Shuruud yaab leh oo lagu xiray dib u celinta ciidamadii loo qaaday dalka Eritrea. Waalidiinta qaar oo walaac xooggan ka muujinaya madaxweyne Farmaajo oo loo darsaday dowladda Xasan Sheikh oo eedayn lagu bilaabay Durba iyo xogo kale ayaan muuqaalkan ku eegaynaa sheergareeya warbixinta Qaran News. Waxaan ku faahfaahin doonaa xogihii ugu dambeeyay ee la xiriira qorshayaal socda dhalinyaradii loo qaaday Eritrea oo shuruud adag lagu xiray soo celintooda. Asees Afwerki oo ka hadlay haddaba shuruudaasi maxay tahay, maxaa keenay xilligan in shuruudda lagu xiro, iyo sidoo kale xogo kale ayaan muuqaalkan ku faaqideynaa. Marka hore sheergareeya muuqaalka, ku faafiya guruubyada, lana wadaaga saaxiibadiin. Waa hagaagan ku horeyno. Xogo hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda Eritrea ay diidan tahay dib u soo celinta dhalinyaradii Soomaaliyeed ee dalkaasi tababarka loogu qaaday. Warkan oo weli aysan ka hadlin filla Soomaaliya ayaa waxaa markii ugu horeysay toddobaadkii hore dibadda u soo saaray nin waayadan dambe arrimaha siyaasadda Soomaaliya saameyn weyn ku lahaa. Georgia Anderson ayaa sheegay in madaxweyne Asees Afwerki oo ah madaxweynaha dalka Eritrea uu shuruud adag ku xiray dib u soo celinta dhalinyaradii dalkaasi lagu tababaray, ayna kaga xiran tahay in la siiyo lacag ka badan 50 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Lacagtaas ayaa lagu sheegay mid dowladda Eritrea ay soo dallacday intii tababarka ay ku jireen dhalinyarada Soomaaliyeed ee la siiyey raashin iyo sidoo kale waxyaabaha ay u baahnaayeen. Dowladda Qatar ayaa hore loo sheegay in lacag 3 milyan oo dollar ay si hormaraysa u siisay xukuumadda Asmara ee uu hogaaminayo Asees Afwerki, balse aysan dib dambe ka bixin wax qarashaad ah. 2 sano ayay joogaan dhalinyaradaasi dalka Eritrea sida xogaha aynu ku helnay. Intaasina ma jirin wax qarashaad oo dowladda Qatar ay ku bixinaysay, waxaana horaantii markii la qaaday dhalinyaradan la sheegayba in qarashaadka ku baxaya ay bixinaysay dowladda Qatar. Waxaana hore loo sheegay in dowladda Qatar loo qaaday dhalinyarada, balse midaas ayaa noqotay mid aan run noqon, waxayna ku soo aaday xilli dhalinyaradaasi muddo la'aa ugu dambeynna la sheegay in loo qaaday dalka Eritrea. Madaxweyne Farmaajo ayaa la rumaysan yahay in xogahan wax badan uu ku ogaa, waxaana ceebtani xilligan looga dhex tegay Xasan Sheikh Maxamuud oo dhowaan ku guuleystay doorashadii Soomaaliya ka dhacday. Lamana oga sida laga yeeli doono arrintan soo korortay. Filla Soomaaliya ayaa hadda laga doonayaa xal u helista, maadaama la ogaaday in dhalinyaradii Eritrea ay joogaan. Madaxweyne Farmaajo uu ka dhawaajiyay in 5,000 oo askari Eritrea laga soo qaadayo oo dhalinyaradii Soomaaliyeed. Waxaa laga filayaa filla Soomaaliya in ay maareyso kiiskan. Asees Afwerki oo lagu ballansanaa in uu yimaado caleemasaarkii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka baaqday, waxaana la leeyahay xogaha hadda soo baxay tibaaxayaan in arrimahan isku maldahanaa darteed uu uga baaqday caleemasaarkii madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynaha dalka Eritrea. Madaxweynaha Eritrea waxaa dhowaan la filayaa in ay kulan qaataan Xasan Sheikh Maxamuud oo ah madaxweynaha dhowaan la doortay, iyadoo aan la ogeyn kulankooda iyo waxa uu quseyn doono, balse waxaa macquul ah in Xasan Sheikh Maxamuud uu wax ka qabto arrintan taagan. Sidoo kale waxaa macquul ah iyana in wax laga qaban waayo arrintan, waayo markii loo eego waxyaabaha hadda soo kordhay iyo sida wax loo filayay waxay kala yihiin kaafiya kala dheeri. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaana waalidiintu waxay ka doonayaan in dhalinyaradii loo qaaday Eritrea iyagoo nabad qaba dalka dib ugu soo celiyo. Mas'uuliyaddan saaran Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ah in waalidiintan ballanqaadka uu u sameeyay ka hor doorashadiisii ahaydna in haddii xilka uu ku guuleysto uu soo celinayo dhalinyaradii, baadigoob xooggan oo uu u galayo halka ay ku nool yihiinna uu soo ogaanayo, ayaa Durba waxay toosh ku noqonaysaa isaga. Waxqabadkiisa ugu horeeya waxa uu ku sheegay inuu ka dhigayo in dhalinyaradii loo qaaday Eritrea dalka uu dib ugu soo celiyo. Dad badan ayaa ka dhowr sugaya Xasan Sheikh haddii uu ka dhabeyn karo arrintaas iyo haddii uu ku fashilmay intaba, balse lama oga halka ay ku dambeyn doonto kiiskan soo kordhay ee ah 50 milyan lacagaha ka badan ee laga doonayo dhalinyaradii tababarka ku dhammaystay dalka Eritrea.